kulankan oo ay martigelisay dallada ururada Puntland ee Finland ayaa ujeedadiisu ahayd sidii loo midayn lahaa qurba joogta jaaliyadaha wadamada Yurub isla markaana waxa ka soo qayb galay 9 wadan wafdi ka socda oo hogaaminaya dawladahaasi ay ku nool yihiin jaaliyadaha Puntland. Kulankani waxa uu qabsoomay 26ka bishan waxaana uu dhammaan doonaa maalinta 29aad ee fooda inagu soo haysa. Waxa ka qayb galay madax ay ka mid yihiin wakiilka dawladda Puntland ee wadamada Scandinavianka Maxamed Cabdi Baydhabo, wakiilka dawladda Puntland ee Finland Cabdi Fataax Axmed Jaamac Janagale. Kulankani ayaa ku saabsanaa sidii loo dhisi lahaa urur ay ku midaysan yihiin dhammaanba qurba joogta jaaliyadaha Puntland ee wadamadaasi Yurub. Haddaba qaar ka mid ah ergadaasi ayaanu wax ka weydiinay sida markaasi ay u arkaan qabsoomidda kulankani. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin shaqo badan kadib markaanu ku guuleysanay inaanu abuurno dalladaas kadib waxaanu garanay oo maxaa la yiraahdaa maadaama ay markii horeba ahayd inaanu expansion ku sameeyno oo aanu maaragtay arrintan aanu ballaarino waxaanu bilownay inaanu ugu gudubno stepkii labaad kaas oo ahaa inaanu maxaa la yiraahdaa u gudubno qurba joogta reer Puntland ee Yurub waana tan aynu maanta u fadhino haddii uu eebba idmo inaynu bal iyadana uga miro dhalino sida aynu uga miro dhalinay maxaa la yiraahdaa dallada maanta halkan maxaa la yiraahdaa ku soo dhaweynaysa Quraan ee wadanka Finland. aniga ku hadlaya magaca dawladda Puntland kulli waa soo dhaweynayna soo dhawaada gaar ahaan waxaan mahad gaar u celinayaa dadka jaaliyadda dawladda ee Finland. jaaliyadaas oo jaaliyad aad hadda u arkay waxqabadkeeda waa jaaliyadda noo suurtagelisay in Kanada aan halka isugu imaano maanta. bismillaahi raxmaani raxiim magacayga waxa weeye Axmed Cabdi Cali ka yimid wadanka Holland matalayana jaaliyadda Holland halkan waxa u nimid ka qaybgalka midaynta jaaliyadaha reer Puntland ee qaaradda Yurub. waa ku faraxsanahay waxaana rajaynaynaa inuu ka soo baxo wax waajib ah oo midaysan oo horumar u horseedi kara dadkeena iyo dalkeena. maanta oo 26ka bisha 9aad waxaa shir nooga furmay midaynta dallada guud ee jaaliyadaha Puntland ee ku nool dalalka maaragtay European Union. halkaana waxaan leeyahay waa farxad waxay noo tahay oo ka socda dalka Jarmalka matalayna dhalinyarada reer Puntland ee ku nool dalka Jarmalka. aniga oo magacayga ayaan Sheekh Xasan Saciid kana imaaday UK kuna hadlaya magaca jaaliyadda UK Puntland Diaspora Forum. halkan caawa aan ku suganahay waa Finland oo ay nagu casumeen jaaliyadda ururada dallada Puntland Finland. waxaana u nimaanay midaynta jaaliyadaha Puntland Diaspora Forum. بسم الله الرحمن الرحيم magacayga waa Saciid Nuur Qaas waxa ka socda Sweden waxaanu halkan u nimaadnay inaanu kala qayb qaadano soo ajiibno jaaliyadda Puntland ee Finland. runtii waa wax ku cusub jaaliyadaha Puntland iyo jaaliyadaha Soomaaliyeedba in la sameeyo ururo iyo dallad midaysan oo dhammaan Yurub oo dhan wada matasha annaka oo u soconna inaynu wadankeennii awoodeena gelino iyo caqligeena ku celino. waa maasantiin. magacayga waxa la yiraahdaa Injineer Maxamuud Xuseen Aadan Buraale waxaan ahay gudoomiyaha jaaliyadda Puntland ee wadanka Norway. waxaan halka u umid inaan ka qayb galo shir ay isku yimaadeen in badan oo kamid ah jaaliyadaha reer Puntland ee wadanka Yurub oo dhan. shirkan oo ay soo qaban qaabiyeen walaalaha Finland waa shir aad iyo aad mataqaana aan ugu faraxsanahay. waa shir mataqaana loogu talagalay inaan ku sameeyno dallad midaysa jaaliyadaha reer Puntland. بسم الله الرحمن الرحيم أنا مجاعي عبد الرزاق على أبو بكر كمان عدير نبهان وعن كسر جالية دنمارك ودك الدنمارك وعن مانت هالكنوني ودك فيلان أنا وكم إذا ميدانو جالية جود بولان ودك قبل دلك يوروب. si kastaba ha ahaatee waa markii ugu horeysay oo kulan caynkan oo kala isugu yimaadaan qurba joog ka socota 9 wadan oo markaasi ay ku midaysan yihiin jaaliyadaha Puntland tan iyo intii la asaasay dawlad goboleedka Puntland ee Soomaaliya. Maxamed Bashiir oo Maxamed telefishinka caalamiga ee Kalson TV Helsinki Finland.